إني ماشي 15 إن شاء الله تعالى. هل كان مدلل كسر جناي وقت بدل كل مناي تقالب بدل الجلسين تعب بدل الجلسين نفي مال بعضه تين يلكي يلوكي أنا دفاعان وكبول ستين ما تروح عشان أولها ما تكيس أفريقيا أوبا عليه الجميل المفيد إن شاء الله تعالى. هذا سوى يقولي من مدي المجسين نصب له لحنا تجي بشي ديسمبر سنة كورة مركي دليلي الكوب الوضعي كانوا كي برشة بلوغها عالم الصوماليين يكملون أمم الصوماليين كان أساس خاطرنا كانوا كبلوضعي وحاو كان يشيل ما تجي بشي أوس إلا وكر على القانون قوة عبي أساس خاطرنا الدنيا عالم كنا كشكيريان وتمريتي معاي وتمريتي معاي أنت أسمعك كذا إن شاء الله تعالى فنانين بينوي ما دونا هنتي إنه هيس دونا وهنقصو نوي إن شاء الله نادام عن معي حماس كسر صوينا هيسا لذا كسر البحنو فدا الإسلام المعي يعني ماشي ونسكت ولا الله سبحانه وتعالى نقصو هذا كلام كيسنا هذا ماشي خير كما سبحان وحن هنتي نقصو نوي يا القرآن الكريم كإلى آخرنا إن شاء الله تعالى إنشنا محمد قندري أهل شيخ إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. عن مركز كسر ويا ويسر ويسان بدوية كارية SSC خاتمو سليمان نبي ومركز حفلة يوم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا شاريدا دار الوين إمانة حق فريدة. إمانة الله أراك رئيس السيخاتمو ودار الوين وحامل كل سلام يا سلام الإسلام كريم سور مريء قفوا بعض مجلس يمسك كيس وكفر لنا وسلام يا odayaasha gabdhaha hooyooyinka haldoorka dhalinyarada culimada iyo shakhsi kastoo ka soo qayb galay magaciisa iyo masabkiisa ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamka bacdi aad iyo aad waxaan kaga mahad celinaynaa soo ajiibidda aad soo ajiibdeen xafladii aan soo qabanqaabinay ee ahayd dabaaldega iyo umushxaridda guushii la gaadhay 25 August ee ay gaadheen ciidamada soo majestayaasha ee halgamayaasha ee hiil walaal iyo SSC Khaatumo waxaan maanta isugu nimi oo halkan waynu isugu nimi oo aynu u faraxsannahay oo wajiyadeena nuur badan uga muuqda halkan dheer oo aynu soo galnay oo waqti dheer socday halkan ka dadku waxay moodaan in uu 8 bilood socday 8 bilood waxa socday dhiiga daadanay laakiin halganka SSC Khaatumo ay caawa u faraxsan tahay meel ay joogtada ay ku xafladaynayso muuna bilaaban 8 bilood ka hor buu bilaabmay ilaa iyo 2007 markii ay soo galeen Suufiyaalo ama SNM ay soo gashay gobolka Sool waa socday halgankaas maalinba meel uu marayay iyo si uu socday iyo taal waaba marka waxaynu halgankii uu ku soo gabagaboobay waqti dhiigbax ah oo ay isugu yimaadeen SSC hiil walaal iyo daaradweyne iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo mid qalbi ka taageera oo dulmiga diidan iyo mid fakar ku taageera intaba leh ayna taageereen waynu ka soo gudubnay oo 25 bishii August ayay soo gabagabowday kuna soo dhamaatay guud iyo gobonnimo iyo in cadawgii laga saaro dhammaan deegaanka aan lahayn الحمد لله الله أكبر إن كستاينو حفلة صعب إيو دربان إيو هيس ينعو بيسوجته لكن وحنا لنا الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يا أمها النقينا
guusha ina makiniyay ina siiyay cadawgii inagu soo duulayna jebiyey xaqana u hiiliyey rabbi subxaanahu wa tacaala mar walba xaqu garab taagaya dulmigana ilaahay agtiisa waxyaalaha ugu nacabay naftiisu ka xarimay innagana uu inaga xarimay cid kasta oo dulmi samaynasana mar walba waa tahoog iyo halaag iyo jab ku dambaysa marka waxaan leenahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin alxamdulilah khudbadda shirka waan inoo furayay keliya anigu waa odayaasha iyo waxgaradka iyo haldoorka iyo gabdhaha iyo kulli waa layga dambaynayaa waan idin soo dhawaynayaa waxaan leeyahay gacmo furan qalbi faraxsan wejiguu ka baxayo ku soo dhowaada iyo inaynu guul taagannahay calanka Soomaaliyeed aynu mar walba kor u hayno oo aynu nahay haddaan nahay SSC Khaatumo biriishka isku xidhaya ummadda Soomaaliyeed ee mar walba ka soo horjeeda in ay ummadda Soomaaliyeed wiiqanto ama kala goodo taana weligeed yeeli mayno. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. runtii oo jeediyo insha Allah taala markan waxaan khadka telefoonka runtii khudbad ka jeedin doona insha Allah waxaan hadli doonaa garaadka guud ee SSC Khaatumo garaad jaamac garaad cali. أما بعد الله عز وجل يا محمد مانتد وإلو سهل مانت إنه كلا دربسن إنه اسمه الله إنه استاجره إنه اسكحنا الله علمي سئلو سهلي إنه محلنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما هذا بقلاشيد فالوينها هير سويدن قرب استاجي هلقنك مسيري صومالية قرب استاجي هلقنك تركوت قرب استاجي حق عدالته diiday inay ku daawadaan walaalkood iyo walaashooda lagu dhibaataynayo dalkooda جزاكم الله خير الجزاء جزاكم الله خير الجزاء إلهي هايدين هيليو هايدين كهيليو دينتو وناكسناته هايدين كهيليو عروضو دين وناكسناته هايدين كهيليو عافمات يعداد سوبر إدسينيو إلهي هايدين كهيليو هايدين كله أوليو ودلكا جوبتان يدلكا جوبتان خير كود هايدين كسينيو شركودنا هايدين كإجابة إن شاء الله تعالى maanta wada cusub iyo xeer cusub ay noo bilaabmay waana tii inaga maqnayd nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi ansur akhaaka taaliman oo madluuman walaalkaa u hiili haddii uu khaldan yahay iyo haddii lagu khaldan yahayba ummadda wada jirkeeda iyo wada noolaanshaheeda iyo wax isku ahaanshaheeduna taasuu ku yimaadaa oo markaa qofka wanaagga ugu hiilisaa xumaha ka qaban karaysaa xeer daarood uu hirgalay weeye mid wanaaggana in la isugu hiiliyo xumaantana la isaga qabto oo la isugu hiiliyo laftigeeda oo walaalkaa inaad xumaanta ka qabato marka uu khaldan yahay waxay ka wanaagsan tahay marka aad ilaahay ku taageerayso iyadoo laga khaldan yahay taas haddii uu heli lahaa muuse bixi oo uu heli lahaa tol wanaagsan oo gacanta ka qabta oo yidhaahda xumaantan aad ku jirto ka bax maanta jabka dhacay iyo burburkan ku yimid Somaliland ma yimaadeen wiilashoodii meydadkoodana 10 maalmood kadib lagama gureen doodi maantana lama waayeen oo cabsi ugumay jireen godad doodi iyo lugaal ku yaala iyagoo gaajaysan iyagoo dhaxamaysan iyagoo haraadan oo dhanqalan ah dhibaatan ugumay keentay inaanu raadino ilaalo dadkeena ku jira boqolka inaad sheegaysaane
meelna u dhaqaaqi karina waxa weeye dadku inuu isqabto oo xumaanta iska qabto waa gobonnimo inuu isu hiiliyo marka ay dhibaataysan yihiin oo garab isa siiyana waa gobonnimo waxaa gunnimo ah in walaalkaayoo dhibaataysan aad ku eegato waxaa gunnimo ah walaalkaayoo khaldan in aad ku eegato ee khaladka uu ku jiro dad innaga dad ilaahay naga koriye baynu nahay inta aad meesha ku fadhidaan baa qaban lahayd haddii tolkii khaldan yahay ood odhan lahaydee war ka jooga waxa aad ku jirtaan nasiib darro kama ayan dhicin sheegaanta tolkoodii wax garanayana ma ayan dhegaysan waxaadna moodaa weli in ay waddadaa ku sii jiraan oo humayaan colaad oo duulaan laba soo qaadayaan dadkaa weeye dadka ilaahay soomaalinimada inala wadaajiyey ee aynu deegaamada dariska ka nahay in aan la isdhigan baa loo baahan yahay hawshii kow iyo laba ma joogto waa ka warqabtaan muuse bixi iyo duulaanka uu ku jiro tolkaydu intii aad hore adkaysateenna jasaakum allahu khayra jaza maanta hawl ballaaran baa inoo taallo oo dhibaatadii dhacday iyo magaaladii la guri iyo caafimaadkii la baabi'iyey iyo waxbarashadii guryihii waxbarashada ee la dumiyey dhismihiisa iyo bulshadiisa oo celinteeda waxaa ka dhalan colkan kale ee maanta dib isu urursanaya insha allahu tacaala intii hore waa ku mahadsantihiin faanoola fari kama qodna insha allahu tacaala yaan la isdhigan oo guushan ilaahay ina siiyey inaynu xajisanayn u baahannahay inaynu ka mida dhalinno oo baa loo baahan yahay midna waa laydii sheegayaa caawa insha allahu tacaala xeeda ka bilaabmay wax badan baa inooga maqnaa dayac badan baa tolka aad meesha fudhidaan ku jiray dayacaasina ma ahayn awood la-aan iyo tala la-aan waxay ahayd isu imaansha la-aan waxaanu idiin ballan qaadaynaa haddaanu dhaqanka nahay inaanu tolka ururino in aanu wanaagga soomaaliyeed annagoo xaqa iyaga raadsanayna inaanu doonno in aanu ciddii ay gashaba aanu si dhab ah ugala xisaabtanno marka ugu horeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u malaynayaa halkan xafladda ballaaran ee reeriyatalboori abaabuleen rag iyo dumarka aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa oo ay ku taageerayaan guushii xoogaga SSC Khaatumo annaguna niyadaannu ka taageeraynay meel kalaan ka imido tuulo yaroo iska tuulo weynaatay oo guryaha iyagaa maalabari isaga samaysanay aanu magaranaysa ku mahadnaqayno laakiin xafladdan oo kaleeto ma awoodin mana aanu dhigin haddaan maqlay xafladdaasi ajiida ballaaran daaro iskugu imanayo waxaan go'aansaday inaan soo baxo oo ka qayb galo ilaahay qaadir ha hayri sharfo rag odayaalaha igu casubay oo meesha inoogu yidhi sidaasaan ku imi marka ugu horraysa waxaan u hambalyaynaynaa dhammaanteen ama taageeraynaa guushii xoogaga SSC walaalaheen ay gaareen ilaahay baa mahad leh mahadda koowaad ilaahay baa leh marka ku xigana raggii dhexda u xirtay ee u dagaalamay ee maxaanku idhaahdaa qaar u dhinteen qaarna u dhaawacmeen qaarna haddeer heeganka ugu jiraan xorriyaddooda inay ilaashadaan heeryada gumaysigana iska qaadaan marka ugu horraysa raggii dhintay aad ugu ducaymayo waxaan hubaa inay jannadii caawa ku jiraan xuralcaynta kula damaashaadayaan gabdhaha ilaahay darajada ha u sii kordhiyo oo sideedda jannaba ha isu marayo marka ku xiga raggii dhaawacmay iyo gabdhaba ilaahay ha caafimaadiyo ragga kaleete heeganka ku jira oo xornimada ilaalinayana
iyagana ilaahay ha xafido guushana ha haleegsiiyo walaalayaal guushaana iskama iman maskax badan iyo tacab badan iyo waqti badan oo la geliyey bay ku timi waxaan marka ugu horeysa u mahadnaqayaa garaadada SSC laba garaad jaamac dhaliya ku budaraya garaad jaamac garaad Ismaaciil isagoo ciidankii halkii uusan joogin oo mid walba halkii joogin ayuu wuxuu go'aansaday in uu la dagaalamo nimankii soo duulay ee SN 33 nin oo waday hawsha ilaa iyo hadda maamul laga dhisay waday ayuu magacaabay gurigiisa markaa inta loogu tago waa la dili karay waayo awood ka daafacayso ma joogin isagaa u bareeray oo naftiisa u hiileeyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahay khayr ha siiyo waxaa ku xiga garaad jaamac garaad cali gala dagaalka سمالا لقى أقبله سيدي نبري أجي أنا وأبغى أحضر نبى وداخل يوحي سلا يسلا سكرنا يانا تقال كاسويني نيكا يتاوحي في دار بانيكا لورجل في دار داري تلقينا عيني ما يو قال وهذا شيء قال تقال كاتي توكانا كما عيني وكلين بفيه الحمد لله رب العالمين وش يا ملايين يصير واحد كسائد وياها يبصي ترى وقعنتها كلها. ويا مثل ما تجلس الإنسان إبراهيم عمر هو أبو هذا التأمين الأساسي خاطبه كم ده جلالة يقول يوصل وين. نيجي بيبقى شغل وحدي. الله يوم حاكمين تجي ناس فريدين. لما فوسيت من جيل مثل كلمة وفوسين من أبي فوسين فرس بروسار. دعالadaasi waxa ay salka ku haysaa oo ay ka soo bilaabantay markii hore waddanka yimaadeen dadna waxay noqdeen raaciyad oo dad protectorate oo ilaaliya noqdeen dadkan caawa shirka fadhiya oo beesha daaroodna dowlad bay samaysteen dowladda daraawushe iyo markii dowladaha ayay ka gudbeen qabaayilkii dowladda daraawushe u gudbeen xaqiiqatan waxa weeye dowladdaas dagaalkii koowaad adduunka ay ka qayb gashay iyadoo la safnay تركي iyo Jarmalki taariikhdu waxay xusaysaa markii Jarmalki uu joogay 1919 daraawashada waxay joogtay 1920 Turkiga 1924 siyaasadda isku weydiisay riixaysaa tan hadda la saxano tintaagna dawladihii markaana la dagaalamayay beesha halka fadhida ayaa la dagaalamaya halka ku saabsan intaas ku baan dhigan doonaayo كلي محمد بن تامر هذا القرآن تي هذا أفتح هاي والقرآن السوري ما هو قرآن الله ولا خلوا وحكي كريم هذا أنا نهوس مقاول لكن دائما باش دارك كشيء ومركا إنه قطون ولا خلوا القرآن السوري ما هو كل كذا كان جوري حان كأنا وضح له رجل لون حريسته نعرس نوا هاي وده برجع كراسي متشيل مركا فريستو سوكر بود ديجي مركانين يغانا ودد kala kamid ah oo ugu aan faa'iideeyay sida hadal aqoonnimada iyo dadka ku kala yaqaano wuxuu markaa xalwa wasbaahada la gulay si soo ee goobtu simira oo sare fariistay mar hadduu soo kaco kuma dhacay ishaaran markaa ku saabsan qaybta dib aan uga doonaa insha Allah taala waxaan ku soo koobay maadaama uu kooban yahay waxaan ku soo koobayaa oo aan kaga baxayaa burburkii kadib 1919 kadib dowladnimadan Soomaaliya maanta ka jirta iyo xitaa tan waqooyiga Soomaaliya ka jirta ee Muusabixi uu hadda ku ciyaarayo guddiga waxay ka bilaabtay magaalada Laascaanood dadku waxay doonayeen inay dowlad dhisaan ee ma ay doonayeen reer Laascaanood iyo beesha daarood midkoodna in burburku sii socdo dagaalku sii socdo laakiin khalad baa laga fahmay maanta sidii ay habeen oo ay doonayaan fahmayaan barnaamijka iyo hawlaha insha Allah taala maamulka Soomaaliland intuu joogay magaalada Laascaanood iyo agagaarkeeda oo qaabteena nabadgeliyo iyo dad moodaya inay dowladnimo dhisayaan
oo inaga mid yahay hawsha loo wadeen ay ku yimaadeen waxyaabo badan bay sameeyeen oo isku dayeen inay hirgeliyaan waxaa ka mid ah inay xoriyaan dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada dadka deegaanka inay abuuraan xornimo sokeeye taasna waxay natiijadeedu noqotay inay burburto is-aaminaadkii dadka Soomaaliyeed ee boqolkiiba Soomaaliya u degan ama Soomaaliya guud ahaanba inay burburto oo maanta aad iyo aad u adag tahay in dib loo soo aamino waxaan insha Allah taala aan rabaa inaan ku soo gudbiyo kaga baxo xuduudaha la sheego ee lagu celceliyo يعني حدود ميسو جاهي ما جرا واحد جرا حدوده ميسو مركو يمنعي لكن الله هذا سنة وإنسان أبوانات فرح إن شاء الله تعالى سنة بسم الله عليكم والسلام يا مرتدى شرفت البضان نشوق الشيء حبيت أقول البضان أدبا بمانك دي سلام يا وقبل عاو مسؤول يا الله إن شاء الله جميلة بالسودية وعلى ريب على البارك سوير عداك بيعي على هذا صول كدعي من كل سلوين عليه وسربه بقلي فالواسوى الفران سوما ليس بجواب ماليغا سيجيكورا سوما هاليني مدكتغا سحر قبيلي يومنا هرع سوماليلان ماليغا عرنكيغا صحا هسيبو بدلا على مرر سمي سيماني قاتو شيء سورا سرنا تبدو ونماليغا سماهاغا مرا سودان ورعتي رفكسي بيكسوغا ورواسوا الفران سوما ليس بجواب والبقى والكيسي هدو بوستيول تغي باباك صالنا رقبا هقارها نسكالي درويشان قبالي نو هديلا كرد الرئيس تيقولي سلو تغي نبرد وحي كردو وحي هيك الشمال بيقان كوني معين وقعتك ريدو كدور بلا دور كيسو كورا يو سو كنا هادنتين أديبا كود الرئيس يقولوا ما بيك مادنتين دور كسو قويا يا هديا هربان وشيغيا دور كان كوريا ما هيا كديا هربان وشيغيا هلكي علينجريس كايو هوكال كغال كديري اكو في لاغو كوريو هلينكي كون عوري إدار كاكا هاو ميدا هاكالكم الدان قلبهم تاقو اللي قاوو معشان عشور تانا كما كنت هنقاريكم مرتان ومكاليكو كويري يوهكم معكم أقدان أنا مكالم بور عيبتين لما قبضو قلت كيبتي يوتنكي بوشيادا نبعا قلت كيبتي يوتنكي بوشيادا نبعا لنكي وكسوكا ديو هاي نقلو حسن قرقوتي يونيكي ما تلين قول تكتبو كارسي يا مقولي لا هاي هاي كولا يستيقو وكينا قرب كديري وشعدي بارتي أفار ساقل من قري يسمى هبوكو وغاي من قري يسمى هبوكو وغاي قريد كوري رجيو هدي نقعن كودياي قريد كوري يوم كوري نقعن كودياي
هديك أقول يستيهم بار نراكر عيوها القري صوت الكواسي ولا قبيلة وقهدي صيدين كي عيار تطوي عيدك قوة بشينا يعيك الصوت مشان التوقوا عيبنا ما حول على عشان كفري قرنك العيب وهو بيسلم عينك يا كبير يا عيل يا بعضي يا كفري إذا كفى عن مراها عيب وهو الكار ما تشوف صوتي هتقولي صفية وعلي حق الكسر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة دمانته ولا ريال دمانته إلهي سبحانه وتعالى يا محطة إسكاله إلهي سبحانه وتعالى لكسنا وقتها إلهي سبحانه وتعالى كسنا لكسيه إلهي سبحانه وتعالى والنبو والنور وعحمات ونقوطنا أن رمضان تكبرها إسكاله هو يلي يعني ربط في حق العيد حمال يشكبها حمال يوم نقول يا كمان الساشر من كلية كمان تركنا كلية دمر كمان كمان تين هالدور كلشرة مليار حمال يوم حتى كل بندق يسوق مكاشين هذا حتى يكون مقطع الوضع يبشوف حمال يقدر يقوليان وعربين يا رب سبحان الله على سبيل الله رواه محمد يبدا يقول كلام يقول وحيقولوا لي برامج إن شاء الله تعالى وحنا لهين كل من يتسوى كجاري لابوها يتذكر رمياض يدمر المسيرة يقولها يندك نرديك وكا نفي ولا ما ما يقولي قلبي ندتوجيا ديني ندتوجيا معنوي ندتوجيا وكان عليها قبل ما كان معنوي ما نور هاي دينيا ما كان نور هاي وأنا استسعد الرئيس مستقبل سارة وأنا قضيت أنا كذا تقوم فكرة شيء صدق بضرب إن شاء الله نطور عليها كذا ما أنت كذا وين الصومالية أمبارح ما تدري قالوا علي رقيقة وتتفحيتي ورقولي كشقية برامج هذه قرادة هاي أمبارح الكوبات قرادة إسكال قرادة كانت كوبا وعاد الحويرة سيد عبد الله الدين الحويرة اللي كنت الرام وأمبارح الغلاطة أمبارح يرجع العيد في مدة الربع يوم الأسيادة كل ما عليه وما تعمل بوش من تلك الفاستان لما أنتوا وهم بيجي أنا القصة كملنا القصة ما بيكملها قال يلا هم بقولها هل كان كم الروا ولا يقدر هل كان كم الروا وعلى الكلام إن شاء الله سأسألك عن القصة مثلا لكن سأعرف القصة ورماها قبل كأوصل الموران عندنا ما تجتاعين يلا كنا نوصله ممكن ما نوصل وجعت نوصل ما غير زي ما دوي كريستاني إن شاء الله أنا إنه سلوان ويقول المكتب ورا إذا تسمع هذا أفضل كل ولا إلا لو سووا جلسة عن أبيه وهذا الدرام يا ما يفرق توكلي يرسل سعيدتي وإذا الدرام يا ولا سبحان الله وعند السلام عليكم السياسيين يقولون فوق الكرادة السياسيين تحب دول وما تنتهي بشر الصوم مرتين فاق وكيل مرتين إلى وقت بشر أسوأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليرى الله meeshaan shaaliyadda isugu keentay kulligiin cala raas walcayn madaxa ayaan idin
saaraynaa waanu idinku faraxsannahay aad iyo aad waanu idinku mahadinaynaa weynaynta qadarinta xidaynta sharfinta munaasabadan ayada ah oo isu keentay waa guusha ay gaareen SSC run ahaantii anigu qof daaweyn baan ahay luuqadda aan ku wasfin karo kaga sheekayn karo waxa dhacay isbeddelka ka dhacay sool uma hayo anoo daaday uma hayo erayo ku filan oo aan ku cabiro maqaamka ay leedahay ama uu leeyahay natiijada ka ratibantay afcaashii iyo duulaankii SNM ay ku soo qaaday sool natiijada ka dhalatay halgankii lagaga hortegay erayo uma hayo ku filan erayo aan ku hambalyeeyo oo ku filan waayo kanoo kale maana arag horeyna noo soomay laakiin taariikhaha caalamka dhacdooyin iyo xisaabaad lagu kala qaatay halgan layskaga hor yimid oo aanu akhrinay oo aanu soo akhrinay baa jira oo u dhigmatan maanta ka dhacdayso waxa weeye runtii waxaanu maraynaa maalmo aad iyo aad u kharaan laakiin duruufta ay nagu faral yeeshay inaanu la falgalno maalmo kharaan yacni in dhalinyaro soomaaliyeed laysku laayo oo walaala innaga iyo qoladaasu walaalayn nin kursi doonaya isku kaayalaynaya nin kursi doonaya isku kaayalaynaya ubadkayada dhallinyaradayada islaynaya waa waalo islayntaasu waxa weeye waa wax xanuun badan weeye waa wax xanuun badan laakiin ujiribdhiga kuwa lagu soo duulaya waa mafruuq waa faral bay ku tahay in loo jiribdhigo laakiin aynu ku khasbannahay inaan la falgallo sidaa daraaddeed sidii garaase maryacadde halgamaaga maryacadde sidii uu sheegayey iyo sidii safiya halgamaa weeye safiye ay u sheegaysay in lagu mintido meeshii la gaaray oo dhulkeeni iyo xuduudeeni ahay waxay u baahan tahay wixii aynu soo qabanay oo laba jirbaanan inaan ku difaacno halkan waxaan hambalyo uga dirayaa waan idiin sheegaano eraya ku filan ma hayo guusha aynu gaareen ma hayo laakiin waxaan dirayaa war halla adkaysto geesinimadu iyo gobonnimadu waxay ku jirtaa in cagaha dhulka lagu sii hayo odayaasha iyo waxgaradka caruurta
iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer SSC Khaatumo ee soo abaabushay barnaamijkan iyo barnaamijka wayna caawil isugu nimid marka koobaad waxa aan ku darsanayaa codkayga dadkii sharafta lahaa ee madasha ka hadlay ee u hambaliyeeyay dadka reer Sool guud ahaan gaar ahaan dadka reer Laascaanood ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyay guusha iyo xornimada iyo libinta ay maaragtay mudnaayeen ee ay u qalmeen ee ay u halgameen ay maxaa la yiraahdaa laba qodob baan rabaa inaan ilaahdo caawa inta aanan tixyar u gelin haddii alla idmo marka koobaad waxaan leeyahay guud ahaan bulshada reer Sool ilmaadeerayaal waa idin darsanay haddii aanu Soomaali weyn nahay iyo haddaanu tolkii nahayba waan idin darsanay waan idin tabaynay guushiina iyo libtiinuna wax weyn bay ku soo kordhinaysaa qaranka iyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka aad wada dhalateen ee aad xigsanayseen way cududiinii aqligiinii xamaasadiinii dareenkiinii iyo awoodiinii waxa laga jajuubay oo laga xidhxidhay inaad ku tabarucdaan oo aad kaga qayb qaadataan dhismaha qaran Soomaaliyeed oo jeceshiin waxaad ku xidhnaydeen ood heesa waxay gobtuna silic way martaa marka dabarkii baad furteen waan idin hambaliyeynayaa waxaan idin rajaynayaa hadduu alla idmo guusha iyo libinta aad hanateen inaad xajisataan oo difaacataan oo aad awoodiinii iyo xamaasadiinii iyo dareenkiinii iyo wadaniyadiinii aad ugu tabarucdaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed aad jeceshiin waxaad qabateenna ma aha waxaad u qabateen qabiil waxaad qabateen hawl ay gabtay dawlad Soomaaliyeed oo loo doortay ayaad qabateen dad baa waxay moodayaan in qabiil iska xoreeyay ma mabda iyo fikrad iyo aragti qaybinaysa dalka hooyo oo jajuubaysa ummadda Soomaaliyeed iyo aragtideeda ayaad jabiseen riya dambe oo dalka Soomaaliyeed uu laba ku noqdana ma jiri doonto insha Allah taala Ismaaciil Mira ilaahay u naxariistay markii ay daraawiish jabtay baa Ingiriis baa qabtay sad ku haysan taariikhda dhowr muddo dheer buu ku xidhnaa oo u xidhnaa gumaystii dabeetana ninkii Ingiriiska ay gumaystaha baa wuxuu ku yiri haddii aad ereyga seer tiraahdid oo ah taliya ama mudane waan ku sii deynayaa buu yiri moogta marka Ismaaciil Mira gabay dheer buu tiriyo ku soo gabagabeeyay sayidow afkii aan ku iri seer ku oran maayo buu yiri يعني سيد محمد عبد الله حسن سيده وافكي aan ku iri seer ku oran maayo waxaas waa dhaxal iyo taariikh aad leedihiin waxaad tihiin labeentii dadka Soomaaliyeed baa tihiin runtii laba ma soo roga gaaban baan akhriyaa haddii alla idmo aan ka gaarsiinayo anoo xaqa daahirka araar ku dilaacin kara allow yaan xidhan dibnaha anoo dulmanaha xaqlaha taxaha ugu doodi kara allow yaan daalimkiyo dambiilaha hiil u gelin allow yaan duud xamaal dubaysa cadceedu iyo dariiqyada shaaracyada derbiga hooyada fadhida difaaciga waayin garab dad uu cadawood ku yahay diintooduna ay mid tahay dubkooduna uu hal yahay oo ay isku duubni iyo dantoodu wada jir tahay nin yiri daraf baan la go'ay dalkana waan qaybiyo anaa daanta iska leh alla ilaahay uu dawaqay waxaanu dareensanayn inuu nool yahay darwiish uu dhalay darwiish ragii shalay duubcadii duulaankii Yurub ka yimid difaac adag kala hortagay ragii shalay koofil dilay dagaalka ragii u galay midnimo iyo dawladnimo dalkayguna waa mid yiri ragaan dulmi lagu canqarin daandaan silcidu la tagin dulqaadna ilaah ku laray dagaalkana laga libhelin ragaan daris weerar gelin dulmina isku raaci karin ragaan
aan dabaqoodhi iyo dilaaladu ay matelin garaad duubkoodu yahay oo aan duud hoos ka dhalan rag aan waxay doonahayn duduub nin kulli ragaa waxay doonahayn duuduub nin liqsiin karayn raggii damcii riyada hungeeyey doraata galab raggii dalka lagu qabsaday dadkii guuray la yidhi raggii dalka lagu qabsaday dadkii guuray la yidhi markii hubka lala duldegay doolaalada loogu yimid duqaymaha lagula kacay raggii gobonnimo dagaal intuu xaragada ku daray misna dusha calanka suray raggaan degdeg uga falcelin dulmiga iyo tacadiga ee digniintiya baaqa diray markii dam la siistay dhago raggii duhur weerar galay raggii durdurada ku galay buuraha darafyada xargaga raggii umuldooxatada duruusta intuu u dhigay daqiiqada soo afjaray raggii dable iyo korneyl maxaabiis daad ka badan sidii darsi soo xidhxidhay kuwii dumarkooda qalay raggii qabqabteen deldelin daryeelay sidii gobtii raggii hubka diiqadaa sidii deeqdii u helay ee aan dakharkii ku dhacay ku dhigin deegaano kale xuduudoodana dabaqay misana dermo nabada dhigay raggii diracyada lahaa qalaska doobiye lahaa dumarka raxmadoon lahaa fahiima dallays lahaa cabbaas iyo deeq lahaa waxay ku dardaarmayaan garaadada duub kale ee mideeyey dadkaygiiow dushaad noo saarantiin intii noo dirirtay iyo dulmiga sool lagula kacay intay damaqday abaal duqaymaha joogtada dadweynaha lagu qaxshow deg oo dib u soo rogaal libtaad u dabaaldegteen rag baa duugta u galee intii hanataay difaac galbeed daris iga jirow waxaad ka dagaalantee doraad aadiida jiri adaan dirqi kaaga dhigay dadkaygu ma yaali karo damiirkuna qaadan waa ninkuu damac kaga jirow darwiishku wuxuu ku yidhi dalkayga anaa iska leh kaagana nin ku doodayo kaagana nin ku duulayo ku doonayo xoog ma ihi dirqina shacab laguma hago ninku damac kaga jiro darwiishku wuxuu ku yidhi dalkayga anaa iska leh kaagana nin ku doodayo ku doonayo xoog ma ihi dirqina shacab laguma hago diyaarna waxaanu nahay dagaal iyo nabad midkaad idinku kala doorataan hoggaankaan doortayow midnimo iyo daacadnimo ku daadihii maatadoo wixii dumay dib u yegleel ardayda dugsiyada gabtaay iskuullada dib ugu noqo bulshadu way daallantee daryeel oo hiil u noqo waxaa ka xusayaa gabadhin adeertaya oo reer laasacaanooda oo Roodo Cabdikariin la yidhaahdo oo dadkii dhalinyarada ahaa ee jamaahiirta ka mid ahaa ee ugu horreeyey ee dhagaxa tuurayey runtii aan aqoon dheerna dee aan u leeyahay moojina dee inanta aragteena waa inanta lugta dee dad badan baa meesha wax ku noqday laakiin waa inanta lugta laga jaray waa moojina aragteen in badan baan waxaan idhi Roodaay waad heli doontaa waxaad u dagaalantay lib iyo taariikhda la gaadhayna waa hablaha doorka ku leh ee istaahila in abaal iyo maxaa la yidhaahdaye taariikhda ay gashay iyo halgankeeda loo xuso iyada iyo dhalinyartii kale dee la midka ahaa Roodo caawa waxaan leeyahay adoo ubax guduud badan gacaloo istaahila ninkii gumac laxaadada kugu jaray gun weeye dhiiggaagii gobo yidhi soo geeshash muu kicin jamaahiirka dootani kumaana aargudin wixii aad ka gubatee ka gilgilatay waa tuu geerida ka xigi jiray gobonnimo u dirirku iyo haddaad gudatay taadii galka baalka dahabkaa taariikhda galaysaa inan uu garaadalay gobna hooyadee tahay guri hodana lagu habay oo gaajo aan araggayigana ka timid sool iyo golo daraawiish oo gaaryaatay hortayga ku goyn karaa
waxaa tahay gayaankii hablihii gammaan faras iyo geela ugubkaa guurdoon ka bixin jiray kuma gabinayaan ku yar rooday gubtahanyada hawlii cungucashada nolol aan gumaad jirin nolol aan gumayn jirin nolol aan gar eexiyo gurac iyo caburin jirin noloshaad guyaal badan goobaysay baa timid guro midhaha geesiga hana guusha qalasyadu u galeen gudaha nabdada bale islaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh markana waxaad ila soo dhawaysaan Yusuf Caabud waa ila soo dhawaysaan insha Allah ta'ala Yusuf bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ilaahay laga yaabo anigu dadka hore hadlaya waa ka duwanahayaan meeshayda kama hadlayo meel dambaan ka hadlahayaa hadda magacayna Yusuf Caabud aqlay General Caabud aqbaariga la yiraahdaa laba waxyaabo kaliya ka hadlaya bacdama ay waxa aan lahayo dhan aan dib u dhigayaa mid waxa weeye waa duco waxaan u ducaynayaa 2008 ayuu halka ka eesay bilowda halkaan waxaan ku haynaana wax kale iyo daarood iyo Puntland iyo Hati iyo maahe waxaan ku haynaa waa SSC qaatuba weeye in hilbaan lahayn la isku qalqalana maaha wixii ay sameeyeen daarood iyo Harti iyo cid kale waxa weeye waa la shukr cala waajib waxa ma taqaana haday hore hadda keeneen ay qayb tahay hadii kale dib uga dhaceen weeye waxaan u ducaynayaa oo halka ka soo bil 2008 saa u garaysaan maqaane 8 kilomitir oo gooch cadeeya la walwaalanaysan wixii gooch soo ka dhacay moogtiin sooljoog wixii ka dhacay moogtiin masmaymin dal maqal yaa yaqaan sooljoog waxa weeyaan ina falaalug ninka la yiraahdo Cabdi Madoobe ninka la yiraahdo ina baydan meeqay dagaalamayeen dagaalkan inta ku dhimatay ka inta ku dhimatay baday waxaan u ducaynayaa maalintii ay soo gashay SNM meesha la ascaano ila kuwa ugu dambeeyo maanta dhintay culumadii abwaanadii gabdhihii eheladii intii dhimatay Ilaahay ha naxariisto sabri Allah naga siiyo intii banaanka u araday oo duurka gashay ee qoraxda iyo dhaxanta iyo kululaha iyo banaanka joogtana Ilaahay iyo wixii dhaawacma Ilaahay u booyay kuwaas waxaan kaloo idin sheegayaa dadaan la halmaami karin baa jira 14 kaysid hebel baa saasi hebel baa aan kala dhicin Abdirsaaq Khudara Abdirsaaq waa madaxweynaha mustaqbalka madaxweyne firdhiya Khudara waa ninkii firdhiyay ninka la firdhiyo weeye nimankaas waxa weeyaan nimanka hadday isu yimaadeen oo talada gorfeeyeen jeexay ruudka weeye hebel baa saaray hebel baa saaray ninka lubka uu leeyahay lagula daarto wax kale lagula daarta maaha waxaan kaloo idin sheegayaa meel yar oo muuqata in aan ka hadalno maaha SSC 1745 kilomitir bay SSC xadul la leedahay badacas ilaa meesha Ergaabo ilaa xuduudda Itoobiya gudaheeda waa kun iyo inta laba kun dhow intaas cadow baa u fadhiya guusha la dhaliyana waa hadda waxa lagu dhaliyo waa waxa 10 bari ka yar waxaan idin leeyahay kelmad mid baan ka leeyahay garaajaan ka qabsanayaa garaajaan wuxuu yahay garab dagaalka hadda run sheegaysaan shuba lacag suldaanka Saciid Sardheere ila soo dhaweey insha Allah taala suldaan soo dhawow bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا سدقيسنو ما صنتهاي أنا سدقيسنو ولا ليال وايد السلام يا دمانتين هوين dhalinyaro odayaal waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Cabbaas xoogaa buu magacayga khalday magacayga oo saxsan waa Saciid Axmed Sardheeye marka intaasan saxayaa waxaan halkan u soo istaagay anigu horta waxaan ka mid ahay odayaasha magaalada guddiga golaha daarood ee
qaabilsan logistikada ama dhaqaalaha marka hadalkaygu wuxuu u badnaan doonaa dhinaca dhaqaalaha in badan baa waxa loo sharaf celiyay ama loo mahadnaqay odayaashii ka soo shaqeeyay gobonnimada iyo guusha la gaaray ee gobolka Sool SSC haba ugu badnaadeen garaadadu iyo inta kale oo la soo shaqeysay waxaan kaftan ku darayaa oo aan faanayga ahayn 23 cisho markuu dagaalku socday laascaanood ka socday ninkii ugu horeeyay oo laascaanood soo istaagay oo ahaa aniga ciidankaygii oo uu hogaaminayo generaalkii muxuu ahaa magaciisii bidde cabdi faarax nabadoonka cabdi faarax wiilkiisa iyo ciidankiisii ayaa waxay soo istaageen oo ka qayb galeen dagaalkii u horeeyay oo ka dhaca laascaanood oo lagaga saarayay dabadhilifkii in cambaashe intii ka dambaysay waxa weeye daaroodka kale iyo hartiga kale iyo walaalaha kaleeto waa istaba socdeen si wanaagsan oo habsami leh oo wanaagsan ayay isu daba socdeen oo ciidankooda iyo hubkooda iyo dhaqaalahooda ay u wateen inkastoo waqtigu ina ku raagay oo muddo 8 bilood ah aynu iscanaananay oo hiirtaanyoonay oo mar aynu moodnay inaga dhexdeena iska shakinay laakiin ilaahay mahadii waxay noqotay maalin maalmaha kamid ah in ilaahay ku kiciyo mujrimiintii meesha joogtay oo dadka maatida ah ka qaxisay wadankooda iyo dalkooda ilaahay inuu ku kiciyo duufaan iyo maaragtay waxaan ilaahay reer caadi iyo reer samuud tii lagu haligay marka walaalayaal anigu halkan waxaan u soo istaagay oo maanta aan ka hadlayaa waxa weeye ciidan iyo cudud iyo hubba maanta waynu haysanaa waxaynu inagu hore u haysanay iyo waxaynu ka furannay dabadhilifkii iyo maaragtay dadkiina ku soo duulay marka waxaa la rabaa ka guud ahaan waxaan shacabka ama ummadda daarood ama hartiba waxaan ku boorinayaa waanu galabta anagu waanu shirnay guddi baanu ahayn guddigaas waxay ka hadlaysay dhaqaala loo baahan yahay dhaqaaluhuna wuxuu ku jiraa dadkan hadda ay hor fadhiya dad baa idin imaan doona guddi baa la doortay odayaal baa guddigaas soo diray reer baa la isugu imaanayaa qof baa la isugu imaanayaa in laga qayb qaato dhaqaalaha oo aan la saluugin wixii maaragtay loo ururinayo dadka walaalaheena oo lagu taageerayo maamul goboleedka SSC Khaatumo waxaad ila soo dhaweysaan markan maxamed deer insha Allah taala sacab maxamed deer ila soo dhaweey mujaahid halgamaan weyn weeya bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi maqlaya dhammaan jaaliyada SSC xafladan qiimaha badan soo qaban qaabisay waa mahad celinayaa iyo ka soo qayb galayaasha waxaan kaloo marka koowaad iyo marka labaadba u mahad celinayaa allihii weynaa ee halkaan isugu keenkeenay inala kodolsiiyey farxadda aynu maantayto halkaan ku sacabinayno iyo guusha aynu ka gaaray dhibkii ina haystay mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahad celinaya waxaan kaloo mahad ballaaran iyo bogaadin u celinayaa isimadii SSC buddhigga u ahaa guusha maanta aynu gaaray ayagana waan u mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa guddigii 33 ahaa ee soo shaqeeyey oo ku soo simay maamulka Khaatumo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaantood waxaan oran karaa guusha maanta aynu ku fadhino ee Ilaahay ina siiyay waa ragga iyaga ah oo u istaagay oo Ilaahay inta kaashaday taladoodii mideeyay baynu arintaas ku gaar
haddaan ka gudbo hadalku nuxur hadduu lahaa raggii hore iyo gabdhihii baa yidhi waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa abwaan khaliif oo god walba gacanta geliyey madaxaga alla raajiyaan laan mahadnaqa alle haddaan ka gudbo waxaan u gudbayaa 2 farriimood baan dirayaa caawa meel kasta xubnihii kala ka hadlay laakiin anigu 2 farriimood baan caawa dirayaa farriin waxaan u dirayaa shacabka guud ee SSC ee deegaankii Soomaaliya ama Sool ku nool baan u dirayaa farriinna waxaan u dirayaa maamulka Puntland iyo siyaasiyiinta Puntland shacabka fariin baan u dirayaado guusha aynu maanta gaaray shacabow oo ilaahay ina siiyay gacanta inoo geliyay waxa aynu ku gaaray waa midnimo waxa aynu ku gaaray waa hoggaan midaysan maanta ma jiro deegaan Soomaaliyeed oo dhaqankii siyaasiyiintii iyo maamulkii ay midaysan yihiin Sool baa ka jira waa wax alla loogu mahadiyo waxaan kaloo ku darayaa oo shacabka SSC xusuusinaya 2 ciidan hadday iska hor yimaadaan way kala guuleystaan mid baa laga guuleystaa oo la furtaa sida hadda dhacday oo kale laakiin guusha dhabta ayaa gaara guusha dhabta waxa gaara ninka guusha u gaaray xagsada baa gaara maanta guul baynu joognaa xuduudeena qayb kamid aynu joognaa waxa aynu ku gaarayna waxa weeye waa midnimada iyo hoggaanka shacabka SSC jamaahiir baan maqlayaa dhalinyaro oo taariikhda in lagu xuso runtii mudan oo arintan budhiga u ahaa laakiin hawsha maanta gacantooda waa ka wareegtay waxay ku wareegtay maamulka waa inaynu u hoggaansanaa guusha alla ina siiyay haddaynan yar iyo weyn maamulkeena aynaan taageerin guul ma haysanayno mana halanayno shacabka SSC waxaan leeyahay dhammaan hadday jamaahiir tahay hadday ciidan tahay si gaar ah ula hadlayaa taageera maamulka ku daba fayla maamulka Puntland iyo siyaasiyiintana kalmad baan leeyahay waan ogahay shacabka dadka halkan fadhiya ka kooban yahay noocuu yahayba sida ay u leeyihiin shacab weynaha halbowlayaasha wadnahooda isku xiran la hadlimayo waxaan la hadlayaa waa maamulka iyo siyaasiyiinta wadaniga waxa lagu yaqaanaa qofka wadaniga marka wadanka xaalad uu galo wax walba uu hayay banaan ku dhigaa siyaasiyiinta reer Puntland waxa la wixii ay rabteen yahanka qabteen dhulka dhiga maamulka SSC hal garab istaago عالم يمني سودو إن شاء الله عالم يمني السلام عليكم هذه أدبا أمها تنتهي شعبك بلارن وهالكان معاه وكسو قيب قلي إلهي بان أمها العلين إياه هالكان سكوكين كيني ليشان تاريخ بياننا نولي لهدانا قبلها هرتي لو بلاد كهر أنه أولي إنه إلهي برينا أنه هالكان كو أفرنا aanu ka ooyayno caawana anaga farxad iyo guushan gaarnay baanu farxad la jooglaana taasi marka waa mahad ilaahay baana loogu mahadnaqaa anigu wax yar war badan ma sheegayo mikrofoonada kuma hadla aqaani laakiin waxaan idin sheegayaa guusha SSC inaan qayb libaax ka qaadano waa wax waajib ah oo ilaahayna faray maaha wax iska keenkeena ani maalintii dhagaxa tuureen gabdhuhu iyo caruurtu baan anigu duulaanka galay ilaahay baana markhaati ka qalbigayga noo jeeda maalintii gabadha laamiga taala oo jalaabiirta qabta xabadda lugta looga dhuftay baan ilaahay baryo gabadha inay guul hesho ilaahay inuu maxaa la u gargaaro waxa ay xaq leedahay ay hesho maalintaas ilaahay baryo aniga ilaahay baa iska warqabna maalinta igu xigta waxay ahayd maalintii garaad jaamac garaad Ismaaciil intuu soo galay oo yiri dhagaxana laamiga inoo ka gura albaabadana inoo fura wadanku waa nabade maalintaasna ilaahay baan bariyay guusha inuu gacanta u galiyo
SSC Khaatumo waa laga hadlay caawan baa laga hadlayay taariikhdii iyo waxyaabihii soo dhacay waxaan rabaa inaan dul istaago iyadoo oo gooja cadde ay joogaan ciidamadii aad aragteen awoodooda oo garaadadii gobolka aanay habeenna ka bixin oo intaasoo dhan madaafiyadu ku socotay yaa haddana iyagoo gacanna qori ku haysta gacanta kalena ay maamul ku samaysteen waa unique waa history way in iyadoo dagaal kugu socdo oo xabad kugu socoto inaad ku dhiirato intaad fadhiisato aad maamul samaysato maamul dhisato oo maamulkii iyadoo xabadu socoto aad dhistay oo meesha ka saaro waa history way waa wax unique waa wax aan meel walba ka dhicin way waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo ama aan idhaahdo inaan mataqaana u duceyno dhallinyaradii yaryarayd ee hable iyo wiilo lahayd ee xabadda lala dhacay ee jarjartay madaxoodii maskaxdooda ma ilaawi doono ciddii u dhinteen ee xabadda loola dhacay waa annaga rag badanoo maanta wax ismoodaya dartooday u dhinteen cid laga yeelayo ama laga ogolaanayo dhiiggii inamada inay ku macaashaan ama wax ku doontaan ama sidii looga bartay oo rag badan oo naga mid ahaa ay qayb ka ahaayeen dhibaatooyinkan soo gaadhay looma dulqaadan doono waxayna la mid noqon doonaan kuwa cadowga ee xabadda madaxa kala dhacay carruurta waa idin salaamayaa tolow waa mahadsantihiin insha allahu tacaala guul iyo gobonimo cabdi siciid ila soo dhaweeya insha allah taala cabdi siciid sacabka arrinta ka dhacda Laascaanood waa in la sameeyaa xarun la yiraahdo xusuusta nool in la yiraahdo xarun xusuusta nool in la sameeyo weey oo macnaha markhaatiga nool waxa weeye dhibka gaaray guryaha aad aragteen iyo dhibashadii dhaawacii iyo dadku barakacay yaa la yaraysan arrintaasi ha noqoto mid macnaha waxa weeye guryahaas burburkaasi degdeg yaa lagu macnaha lisin ha noqoto guryo macnaha la daawado taariikhda ay macnaha la xasuusto dadka dhaleen looga sheekeeyo maxaa yeelay waxa la diray waxa weeye waa daraawish ilmaha ay dhaleen weeye agoontoodii way waxa la dagaalamay oo rabeen la nabeeyo hadda waxa la oran lahaa maamulka hadda meesha laga sameeyay arrintaasi ha u baxsho xusuusta nool wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaad ila soo dhaweysaan oo soo gabagabeynaya hadal dambe oo laga oranaya ma jirto waa gudoomiyihii jaaliyadda daarood maxamuud ila soo dhaweeya sacab السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على عباد الله الصالحين الذين آمنوا وكانوا يتقون وسلام يا دمان دتك أهل شرفك هل كان صو حاضري مروين يا مدنيال رجي يا دمر دلنيري يا ويل وعن كل هذا ما علينا يا شاليدا SSC خاتمه سواء جالسنتي كلن كان يحفل دان قيمها بدن كم ذي بلشدان يصير وذاك goobtan barakaysan walaalayaal hadal muhiimadiisii iyo sharaftiisii iyo karaamadiisii waa la inoo sheegay insha Allah hadda waxa loo qaataa positionka ka banaan waxaan isleeyahay hadda rigoora oo yaala meel lagaga tuuro inaanay harin baan filayaa horta waxaan leeyahay marka ugu horeysa meeshii wax ka soo bilowmeen isu tilmaami mayno waynu ognahay waxaan aad ugu ducaynaynaa intii dhimatay in Ilaahay u naxariisto inta nool Ilaahay uu sharfo intii ku dhaawacantay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu boogadhayo dadkii kacdoonka ka sameeyay gobolka Sool kuna talagalay in ay iska kiciyaan cadowga mareebaanka ah ee gumaystaha ah dadkaas oo la magac baxay jamaahiirta dabcan barwaa u godgaleen
barna waa u dhaawacmeen kuwana waxay ugu jiraan weli difaac ayay ugu jiraan waxay mudan yihiin xusud iyo sharaf iyo karaamo qolo walba meesha ay joogto ayaan ugu ducaynaynaa ku sharfaynaa ku bogaadinaynaa kula hambaliyaynaynaa waxaan kaleeto oo aan dardaaran mug iyo miisaan leh aan jeclay halkaan inaan uga gudbiyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxaan leeyahay runtii meel fiican baad wax keenteen si fiican baad uga soo qayb qaadateen hiil iyo hoo ayaad muujiseen wixii la idinka filayay doorkiinni ayaad ka soo baxdeen faxayaakumullah ayaan leeyahay madaxweynaha dani iyo karaash labadaba waxay ka soo baxeen booskii iyo boosishinkii looga baahnaa mas-uuliyaddana ay ugu hayeen bulshada ay matalayeen waxaan isleeyahay in yar oo aragti sida aniga iyo waxay la muuqdaan in ay ilaaliyaan dhammaan xuduudaha iyo bulshada reer SSC kuwa hadda cusub oo la doortay iyo maamulka Puntland labaduba ayaga oo iskaashanaya siyaasad ahaan dhaqaale ahaan awood ahaan iyo ciidan ahaan intaba inay ilaaliyaan guusha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina siiyayna ay adkeeyaan ayaan u dardaarmayaa labada calan oo mataanahaana sida ay mataanaha u yihiin inay u ilaaliyaan oo u xajiyaan ayaan rajaynayaa insha Allah ta'ala waxaan aad iyo aad ugu ducaynayaa garaadada sharafta leh ee gobolka Sool dhammaantood Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha diyaar garowgii iyo hawshii aad gasheen iyo guusha aad ka keenteenba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha idinku bedelo khayr iyo wanaag ajar iyo xasanaad jannadiina Allah idin geeyo haddii aad geeriyootaan waxaan kaleeto iyagana aan jeclahay inaan halkan uga mahad celiyo guddigii 33 ahaa ee hawshan meel fiican keenay runtii kana soo bilaabay meesha bannaan ee ziirada ah ayadoo dhiig u daadanayo ayadoo oo aanay waxba ool ayadoo aan dhaqaale ool ayadoo aan ciidan ool ayadoo aan maamul ool nimanka halka ka soo intiqaalay oo halka ka soo raray meesha sharafta lena maanta soo gaarsiiyay ilaa iyo laga doortay heer madaxweyne waxaan oran karaa waxa weeye raggii la magac baxay SYL oo Soomaaliya u soo hooyay calanka iyo guusha waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalayaal hawshaan cayaar kuma aan meeshaan waxay ku timid rag iyo gabdho dhiigood ayay ku timid iyo dhaqaalahood dadkeena hadda qurba joogta oo meelahan jooga inaga waxayna kaga aadan hal munaasabadaas in badan baa laga hadlay si gaar ah iyo si guudba waa looga hadlay odayaal ayaa waxay miisaal ku bixiyeen iyo gabdhaba sidii garaajama xafidahullah uu yiri gala dagaalka in ay iyaguna xusaan bixiya walaalayaal xogaaga dhaqaalaha oo xogaaga dhaqaalaha inuu ku difaactayno bixiya lacagta sax weeye waa munaasabad iyo runtii hadal positionkiisa iska leh sida ay hadda ka hadleen odayaal aanu guddiga ka wada mid ahayn in ay sheegeen inaanu iminka ku jirno hawlgal dhaqaalahana waxa laga doonayo waa jaaliyadda reer daarood ee degan qurbaha gaar ahaan inagu gobolkan aynu degannahay ee Sweden ama bataqana gaar ahaan Feesar iyo Talaan walaalayaal waxaanu u baahanahay insha Allah ta'ala si sharaf iyo karaamo leh inaanu isku xilqaano oo qolo walba insha Allah ta'ala meel kasta ay joogto ay ugu tala gasho maanta wixii aad bixisaan iyo wixii aad hurtaan ayaad runtii libinta aad idinku helaysaan ay holin doontaan insha Allah ta'ala raggii dadkeena ku baabi'iyay dhibaatada weyn u geystay magaalada iyo gobolkii caasimadana dumiyay boqolaalka kuna barakiciyayna waxaan leeyahay ninbaa wuxuu yiri wankii xooga badan sheegtay iyo bowdada iyo jiirka bilaawaha codkiisana maqlay ruuxu kaga booday ee quusta lagu beeray oo tabaribeenta dheh ayagana intaas u dhaafi maayo aad baan idin salaamaya assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh I'm
Sorry,